gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Soomaaliland ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa booqasho iyo duco ugu tagay tafatiraha telefishinka bulsho Khadar Macalin Deeq oo xaalad caafimaad u jiifa dhakhtarka gargaar ee magaalada Hargeysa kadib jirdil ay u geysteen ciidamada ilaalada wadooyinka Soomaaliland. Ducaynayna Ilaahay nabad darraa kaaga dhigo insha Allah caafimaad sariic Ilaahay ku siiyo waa ducaanku caafimaad ku ducaynay booqashada kadib Dr. Ciro oo warbaahinta la hadlay ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyay inay tahay xukuumadii ugu tacadiga badneed saxaafadda. runtii waxa farxadii ah inaan soo booqdo saxafiga tifatirihii telefishinka bulsho ee tacadiga loo geystay halkan sidaa ka maqlayseen dhaawacyo halis qaba oo u baahan dhakhtar dibadeed waxa ay andaraa Soomaaliland saddex waxbay ku aanbaxday oo ay magaca ku heshay mid wuxuu ahaa hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waa ka warhayseeno gowracay ugu jiiday xukuumaddani iyo xisbigeedii midna waxa saxaafadda xorta waxa lagu qiimeyn jiray Soomaaliland waddanka ugu xorriyad qowl badan geeska Afrika tiina waa arkaysaan maanta waxa dhacaya markii ugu horeysay maaha waxaan rikoorku sheegayaa in xukuumadda kulmiye tahay tii ugu tacadiga badnayd saxaafadda xorta midna waxa xuquuqul insaanka in la ilaaliyo waa arkaysaan oo tani waa xuquuqul insaan lagu tuntay muwaadiniintu xaq bay leeyihiin qofku hadduu dembi galo dariiq loo maru leeyahay waaran buu leeyahay laakiin isagoo suuqa jooga in la garaaco ama guriga loogu dhaco waxay ka soo horjeedaa dhammaan qawaaniinta Soomaaliland waxa loo baahan yahay inaanay taasi niyad jabin waddanku wuxuu u baahan yahay iyo duniduba warar runa oo xaqiiq ah garaac kastaana ummadda dareenkeeda iyo rabitaankeeda ma joojin karo adduunka oo dhan wuu soo maray saxaafad la garaaco dad la caburiyo kumay guuleysan intaasoo dictator baa dunida soo martay Soomaaliland uma baahna inay qaado dariiqa dictatoriyadda saxafiyiintana waxaan leenahay inay tafatarahana Ilaahay nabad darraa uga dhigo dhaawaca gaadhay waxa kaloo ka warqabtaan Cabdimaaligna in la garaacay markii burca laga soo qabanayay saxafiyiinka la socotay tafatarahana waa la garaacay marka kuwaas waa tacaddi iyo xadgudub laakiin waxaan idinku boorinayaa intaan iyaday ka qaadaan mooyaane inaan idin jabin sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Hargeysa waxaana gudoomiyaha xisbiga wadani uga mahad celiyeen booqashada uu ugu yimid tafatiraha telefishinka bulsho aniga ku hadlaya magaca maamulka sare ee telefishinka bulsho waxaan uga mahadnaqayaa inuu halkan ku soo booqdo tafatiraha guud ee telefishinka bulsho Khadar Macalin Deeq Sheekh Ibrahim oo ay jirdil u geysteen ciidamada booliska Soomaaliland mudane gudoomiye waxaan kaaga mahadnaqaynaa mar kale sida dareenka ula tahay shacabka reer Soomaaliland aad baan uga xunnahay in ciidamada booliska iyo xukuumadda madaxweynaha iminka joogaaba intay joogeen ay badiyeen tacadiinta ay ku hayaan saxaafadda sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan uga mahad celinaynaa sidoo mar walba u garab taagan saxaafadda Khadar wuxuu kamid yahay wariyaasha ugu sumcadda badan Soomaaliland ixtiraam kale ee degan Dr. Ciro waxaan leenahay shukran laka saxaafadda Soomaaliland kuma iloobi doonto maalmaha ay baahan tahay ama dhaawac siyaasadeed u gaaro ama ka dimuqraadiyaduba waxaan leenahay xukuumadda madaxweyne Biixi saraakiishida wasaaradda warfaafinta booliska waa inay gudataan mas'uuliyadda ka saaran shacabka Soomaaliland khaasatan waxaanu tabaynaa wasaaradda warfaafinta aan hoos iman jirnay oo aan ka weynay mas'uul booqda wariyaha ciidamada booliska Soomaaliland dhaawac u geysteen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaan leenahay baal dahabeed ka taala taariikhda saxaafadda Soomaaliland aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo maalintii shalay tahayd uu dalka yimid oo dabcan ay taasi muujinayso qiimaha uu saxaafadda Soomaaliland u hayo inuu halkan ku soo booqdo saxaafadda Soomaaliland oo dabcan Khadar Macalin Deeq oo dhibaato ciidamadu ay gaarsiiyeen uu markiiba dhihiisa ku soo arko gudoomiyaha dadaalka iyo kuwa kalaba waan u haynaa abaalka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saaxiibkayo saxafi Khadar Macalin Deeq
oo shantii cisho laga soo gudbayba xaalad caafimaad darro u jiifa isbitaalka gargaar kadib markii dhaawacyo ay gaarsiin ciidamada booliiska Soomaaliland gudoomiye oon kuuga mahad celinayna waananu ku ognahay mar haddii aad garab istaagtay saxafiyiinta oo intaasoo cisho shanta cisho aanay jirin ciidamadii dhaawaca u geystay iyo mas'uuliyiintii xukuumadda ee xilka qaranka guud ahaantii hayay ay soo booqan waayeen isla markaana ku hagradeen goobta aad u mahadsantahay Fahad Axmed Kaariye Bulsha TV Hargeysa